knn. koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war hadda ka hor gorgor baa rig ku duldegey sida abwaan xasan gelin sheegay suugaan badan aan laga sameeyey war heestaan weligaanoo dheegi jirnay hanuuniya gaaday waana ma eraayey gorgor yahow igaarsii gabalba iga dhacaye gacantayda marsoo geli gacantayda marsoo geli kuma dartido war heestaa ku dheelina saas mayna xasaada samadar ah ku heese wuxuu yidhi gorgor orodka loo daa waxse aan daminayaa raq intuu dul joogow hilib daydayaayow dantaydii iseejin arheesta saas ma iina dhegayso soo ma ihin gadeedii goranyoy gabbalku dhac war saas maahayna waxay ahayd weyisha gadoode geeska rayska gelisay arsaas maahayna heestu waxay ahayd adaa geesiyoon baqine gallayro wadaa axmedee abdigaashaana ma eray meelhaad ka guuray hilib ma lehe bahalkii u hoydo wax xubso yeeri war madaysaaqow saas mahayne waxay ahayd haaduu waa ku soo hirataa hilib ma how yaallo war waa nala waalateena gorgoraan idinkala hadlayn dhegaysta abwaan hadraawi wuxuu yidhi in dhowayd guhaankii gulcun buu dhalaayo gorgor iyo waxyaable golli heerya sideetiyo rati gorod madow iyo geesoola boqor iyo saadaal gurrucan oo gurran waa la filaye ninkii beesha soo galay gundadhigashadiisii rigar baha isaga taag margarkeeda feerfeer afka godan ku kaakici marna caws u soo goo ka takooriya gacalkeed habeenkiina gaarkiiyo gaafmeerka tarantari dabadeeta goobtii gurmadkii isugu tegey afka gacanta wada saar mar la yidhi ridaa guulgallad hoose wadato cid aanay garanayn marna gacal xijaabto gunnadii iyo xusuustiiya laga gooyey samaho isi soo galluubiya nin gargaar u didayoo gibil doorsan lagu sheeg marna duni gabloosho socotoo gudbaysoo guuraysa lagu sheeg marna caashaq guunoo goobaaya beeshoorrida gara jeclaadoo guurdoona laga sheeg googgaadu badana warkaagoo dhan waxuu isugu soo aruura gobsana hablahayagu abwaan yuusuf maxamed muumin may baaray googa waa guud mar sheekadu ye googa yeeri war abwaan xasagani hore wuxuu u yidhi gorgor yimid hargaysiyo ganay weeye faalladu gacanqaadna wuu dhacay marka hore warkii guud war hargayso garan maysaane waxaa la yidhi beertii xorriyaddaay bara caafimaadiyo guri laysku baantaay baxsanay hargaysaay kaa guddoomay baaqi warkiina markii la isu geeyo wuxuu noqonayaa darabdaar ninkii lagu boqoraageeda sare waabiye garmaqaatayaashiiyo dadka beera ruux gurane damba niman la soo bixin haddii guula lagu waabo keligiis inuu guurti yahay maalintaa gulud aryaa warkaan yaxaad isugu geeyahay ninba afkiisa ku warramaya hankoolkii galmudugow musgorodo hayta maahin adigeeda sare waab maday isaaqow hankoolka galmudug gorgorad ha ku sheegin sirwaal waayo wuxuu gashan yahe aniga iyo jaamac qaareeyow nagu qalday war maanta gorgorood ku waalateene gorgorna ilmaha laga celin jiray maxaad ku aragteen maanta war arrintu gorgor ma ahayne waa googaalaysi labadeenna googa maad garan xisaabta mase geedkii mira leeba idinku waska gurataan miyaad ka wadaa cabdulow geed maruluhu waa gurasho doosan dhuunkaa lahayn war naga suga googaalaysigoo su'aalaha nooga jawaaba walow aakhira su'aaluna kora hayso haddana taada soo dey su'aashaydu waxay tahay dawladda soomaaliya mucaaradka dhaliisha u jeediya iyo shabaabka la diriraya kee u daran ama ay necab tahay aryaa dawladda mucaarad lama tuseexaa kalood haysaa war shabaabku shacabkay laayaan mucaaradkuna dawladday dhaliilaan marka dawladda waxa keligeed beegsanaya u daran mucaaradka daacadde danguudoo laga hadliyo keliya doonaya wanaag warkiis lama diida oo dadnima waa aragtida haye su'aal kale puntland maamulka madaxweyne deni maxay odayaasha boosaaso u xilxirayaan taas may leeray waari maysida war ha kaa haro odayaashaasu dantooday dhinac mareen oo
hoy dhinac mareen war Puntland waxay ka baqe in odayaasha ay gaartay bashqada ay ku qoran tahay naana war dawladda Puntland may ka aalay odayaalka atar na ka qoran dalka buufiya ka arfiyo hayaan aryaadaha horta nacnac ilmaha jeclaa jira odayaashan xamar joogana waayo kuwa jecel baqshaday ku qoran tahay na ee Puntland waa dad dhaqan leh cabdullow been ha sheegin goormee noogu dambaysa na labaatan su'aal kale Jubbaland iyo Axmed Madoobe maxay dadka ka soo horjeeda u dilaan ama u masaafuriyaan war taas anigiin sheegay aan hele idaan ana u joogay ambuladeed cunaaye oday qarar raflooho idoo kale taradso yu arada sayidka sayidoo ka dambeeya sayidkaasna qof kale meesha ka taliya ma ogola aryaada warka badan iska dhaafa horaa loo yiri qooru xira kuma heshiise ayaa su'aal kale Soomaaliland iyo Muuse Biixi maxay siyaasiyiinta xisbiga wadani iyo saxaafadda u xirxiraan war way edab daran yihiin oo way dheerdheeraynayaan sidaa darteed xabsiga liinta ku cabayaan war hore Muuse aan darab lagu bixiyay maxaad kaloo sheegaysaa war Muuse Biixi diig aragaw dareenka ka jiray madaaga wala reenti dadkaas aragaw dawlad toosan malka sugaw nabeemaday isaaqo warkaaga Muuse Biixi inuu san fahmaynin waraadar Muuse Biixi Soomaaliga u yaqaana الله بحب القمر يوم الدهر ما قمر ميو يقانا su'aal kale maamulka Hirshabeelle iyo madaxweynahood maxay xamar u joogaan Semberi war wala maxamar inuu anigiin sheege lama daada jirta daadko kan webigu kooni shabaabku ay la siin qaadnay leeyin ayaan daadku kula tagin miyaad ka wada aro haddii warshada isna shaqaynaysa waa joogi lahayna warshad la'aan tahay ugu soo kala tagaan meesha war maya waa beerka jeceliya xaydha jeceliya war nabad iyo nololay mar hore nagan galeen welina sidii ay u hoos joogaan war su'aal kale koonfur galbeed maamulkeeda iyo madaxweynaheedu mar kasta waxay yiraahdaan degmadan go'doonsan waa laga qaadayaa go'doonka jidadkana waa la furayaa waa la xoreynayaa mana fushee maxaa dhacay yaa taas runaha sheegin beenaha sheegin waxaad sheegtana haweenin aha war taas meelishaan isiin sheege gabartii qudbasreedaan ahni gali ma benika hasan nikah je badalangu in nikah sax ay waa iska haystaan ama jid furaayano jidni hiraayan waa qawda maqashay waxna ha u qaban war maya waa buush weelka buuhi war su'aal kale war adigu su'aalo badanida imtixaan miyaad naga qaade galmudug maxaa maamul u diiday oo waqtigeeda muran ku dhameeyay war ma wada maqlin muranland war yeelamayna ugu horeys aro madax adkaana u diiday shib naga dheh su'aalasina su'aalo ma hayna widaayay aniko gu badan iyo aniko gaadwin aniko gaan badan horta la gablameen tiidiya kala darawalantii oo badan dhagan joono kasaasa ma hibil baa saasna dhihi kara ma hadana yeeli kara baashanada ma hibil hogaaminahaya tukaanki faa iska dhiinan furnya ogaawhe aray anigu warkeedin ku badi maaye mar walba muuruna jire galmudug mixna badana mar walba muuruna jire galmudug mixna badana toman iyo kow beelood wax u qayb adiga haday qaybsamayaan su'aal kale muqdisho maxay ku weyda maqaam iyo matalaad iyo maamul ay doorato war ma marantahay muqdisho waa caasimadii Soomaaliya dadkeena ka dhaxaysaa maya kameel dar siyaasadeed ama dhajar doorkan ay maahina lan muraadka lama leh dad joona ma aniga gaben muqdisho dadkay ka dhaxaysa waa waxa indhahaas u yeelay meelaan la kala xigin qof kasta wuxuu rabo ku sameeyaa war malshal hiigitaada sheegaas tiishaantiyu inoo abdal qusul iyo inay godonada dadka dhamaayaan muqdisho ilaahay ha ka dhiga maqsuudo rabbi mulqshadaadi ha u muujo qeyrka warnimayo war ma haysaana geeda Soomaali la yiraahdo shaytaan baa ka adkaaday janan gurigiisii dhax fadhiya ayuu sargaal kale ay isku ciidayiin gurigiisii inta ugu yimid ku dhax toogtay war waxa la yiri ara waa fal shaydaan waana ficil qaraaro ibliis ku fududeeyo war waxa la yiri midkii fuliyay goortaan shalay baa ku furano kubaashi lama fiicna war waxa la yiri talo farakahaday hadda fadad iyo qowmamo fajacu ku sugan yahay war waxa la yiri filimada ibliiska aadmiga fashiliyo fudaydkeen nacayb kuma fardihiisa weeye cadawga ka fiirsada adduunyoy filim badanay oo shaydaan oo filim badano miyay naqatay tilinka isan sheegasan dhumay fariidka falhun antiidan falna ka fiirsoy war ma haysiine jilibtii xalay ka dhacday waa la yaabay kobtaydii maragtaa ka dhacday nimankii iyo meelhowdan ku shiraaya acirka looga soo dhacay war miyaa la daba jabacsaday artaas waxaa ka sii dareed intii balaayada cirka ka soo dhacday ka badbaaday kuwa kaloo iyaka ka mid ahay dhaheen kuwaasaa xogtaanyo fashilay asay duulimaad jiicnaaw ku siiyeen hadda kuwii cirka ka soo dhacay intay ka dileen kuwa ka sii 10 jilbaarmay iska dileen war macaawinada cirka
kugu timid miyay isku dagaaleen waxaa kaloo hore loo yidhi nimaan cimraynin ceel baagey cirkaa wax looga soo riida nimankaasu cirka xaqoodii waa ka helana dhulkaa laga hagraday warnimada war ma haysaane reer ilaalihii da'da yaraayo dhowaan la magacaabay dhumay widaayey waxaa la yidhi safar shaquud maanta dibadda uga yimid maba dhalana dhowrtaysa ogaa hore loo yidhi war xeer ilaaliyaha war kama haysiine maantuu muqdisho soo gaaray waran iyo gaashaanna feelay eelboor ku galeen agaasimaha warfaafinta madaxtooyadina cabdinuur wuxuu soo qoray xeer ilaaliya dadkan adoo weli shaqo bilaaban feel dheer kuu soo galay iskana ilaali iskuna ilaali war cabdinuur maxamed axmed naftirkiis waa in la iska ilaaliyaa la iskuna ilaaliyaa see la isaga ilaali karaa waa afhayeen madaxweyne arooda war ma haysiine baarlamaanka kenya waxay dhaheen darbigii soomaaliya iyo kenya intii u dhexaysa laga dhisaayey 30 malyan ay dawladda ku cuntay oo musuq maasuq yahu hakuna matata leta pesa mimi na Kenya habana na Somali ayay dhaheen miya aro mimi hakuna kazi na tafuti shikoni mimi wanda war waa mibilikawa magonja wa 20 mama nini ni laf wewe kaalay baarlamaankeenu markuu golaha shacabka noqday miyaad Kenya ku mashquulshan intaan ku huraynaahe war Kenya haddayba darbigii beenbeenta 30 milyan ku cuntay badeennii ay dhacaysana meeqay ku cuntaas leedii arooda yaa okay arrintaas madaxa ay ka weyn tahay war ma haysiine madaxweynaha Soomaaliya State Mustafa Agjar wuxuu yiri gobolka City taako kamid dhulka Soomaalida aan farsiimayno afar awal hay naga rabtaa ciridka laga toobe war ma haysiine Soomaalida xoolaha ay ku xadgudbayso ayaa cuquba ugu filan haddaad aragtiin sida dameeraha loo raro maantay ciil baa idin dilaya ada waa raraha iska mana heedhici kariye nin arkana wuxuu yiri wax tan weyn hadii aadanaha tuurta laga saaro inuu taranturoon waa iyadu tii xaqiiqa ah balse wuxuu karaa tabasho iyo tartiibiye ma yeelaanka aan tooqin baa tagarfal haystay tacadiga dameeraha iyo tuurimaha saaran waa sabab cadaab lagu tagiyo marin tahluukaade hal loo turo darmaanada ilaahaydan toosiye horaa Siciid Xarawe waxa uu yiri gurayare dameerkaygo gaadiidka dhaqankaygo warniyo dameerad ka hadlaysaane dadkii baba leynaysaane war waxaa la yidhi dusha calan markaan saaray oo diir cadduhu guuray dal intaan lahayn iyo bulshoy dawlad magaceeda duuduub wax laysaga laqoo duluna mooyaane weligiis dadweynuhu ma helin doorashiya food da'deeda howl u darbanbaay huruda waar midho daray duuduubkaa lagu liqaa doqoney dabka miyaan aryaa la dhihin dalka u shaqeeya